بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو ومهد عبد محمد مهد شاكر. مقالة فرانكفورد دالكا جرمالكا وحا حرونتي سويتهاي أوروركا صحفيين الصوماليشة دوجة جورناليست. تلفزيون كرايس تي في أيا أسر تقشي إنه وريس ليشو قدوميها أوروركاسي أو دوان لأساسي أو ليرادو زكريا شيخ محمد جيلاني. قدومي مركور سودو mahad shaakir aad baan u dhowahay adiga iyo telefishinka caalamka Rays TV runtii fursad iyo waxay ii tahay iyo chance weyn inaan halkan maanta ku kulano oo aynu ku sheekaysano aad baan u mahadsantahay waayahay su'aasheeda koowaad aan ku weydiinay waxay tahay dhawaan waxaad aasaasteen urur la yiraahdo Soomaalisha Doje Journalist waxaan u maleynayaa inay bishii lixaad ahayd marka waxaad marka hore iga warantaa ujeedada ururka oo asaastay bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay walaal ujeedada ururka aan u asaasnay ugu horeyn waxa weeye in horta la helo tirakoobka iyo tirada wariyaasha ku nool dalka Jarmalka ugu horeyntii waxaanu hindisnay ma Yurub aynu ka dhignaa ma Jarmalka aynu ka dhignaa ma gobol baynu ka dhignaa marka waxay noqotay in bal horta Jarmalka laga dhigo Jarmalku hadda waa wadan weyn oo marka la eego population ahaan dadku aad ugu badan yihiin Soomaaliduna aad ugu sii badan tahay marka loo eego Yurub tan kale waxa laga yaabaa inuu dalka labaad ee ugu dadka Soomaalida badan la uu yahay qaaradda Yurub Ingiriiskuna uu ka baxay imika inuu isugu hogaaminayo سادراديد مدن أنا قالكم كنولا إنتان كنولا دي مالك استوريال يو فرصمية قانو كاميرامانو يرك ودن كي أنا سكون قاني يكوا أن سواه اللايبة أيوم بنتاكو كل من يرقي قبلا دي لحية طبعا قبلا ودن كان شرمل كي كريد جناين تدنا أنا يرك بدن أكلا وحجر هذا أو صحافة دي أيوة إحنا هندسني warbal de weynu kala daadsanahay goobta soo urursano ujeedada ururku inaan saxaafada soo ururino tiro koobno dabadeedna inagu aynu marka hore unity sameeyno midowno oo aynu ku midowno magacaynu ma garanaysaa aynu inta sameysano ay bulshadeenna marka wax u qaban karno ay ujeedadu hawlaha waayahay wax walba la sameynayo caqabad iyo looma dham ay leeyihiin sida Soomaalida qocaan tahay waayihii dambe marka wax caqabad oo idin la soo gudboonaaday noloshan bila aadanka oo dhan caqabadu iska jirtaa dhinac kasta eegto marka Soomaalida la eegayana caqabadu waa waxa ugu weyn mar walba wax kasta fashiliya marka adeegayso maamulada marka adeegayso mar walba caqabadu way taala hatta urur yar oo kooxi sameeyay ama qof uu sameeyay ayaa wax mar walba negative umad u sameeysan baynu nahay alxamdulillah wariyaashu iyo saxaafadu dadka ugu bisil waayo waxay la nool yihiin caqabadaha waxay maalin kasta way aragnimadooda tusaysaa ama ay cashar ka qaadanayaan laba is haysta kuwa siyaasad isku haysta kuwa diin isku haysta kuwa dhaqan isku haysta kuwa intaasoo magaranaysaa dhinacyo kala duwan ay kana tabinayaan marka waxay wariyaashu mar walba yihiin kuwa dadka ugu way aragsan ummadda marka laga hadlayo muxuu ahaayay dhacdooyinka maalinlaha ay la kulmaya way jiraan oo aan ma oranayo caqabadi ma jirto laakiin sida aanu filaynay waa ka yartahay marka ma ka guulaysateen oo ma ka talaabsateen caqabadii waa su'aal wanaagsan guushu mar walba de halbeeg bay leedahay oo maalin baalka joogtaad guul u aragtaa maanta halkan joogno guul baan u aragnaa maadaama aan ku dhawaaqnay maadaama aan imika diiwaangelintiisa iyo sharciyeyntiisa gacanta ku hayno maadaama sharcigiisa dhameystirkiisa aan gacanta ku hayno maadaama tiro ka badan 34 saxafi oo saxafiyiintii wadanka ka soo shaqeeyay iyo kuwii muxuu ahaayay farsamayaqaanadoodii maanta ay ururku ku midaysan yihiin oo wax dhici kara inaan muxuu ahaay weli la wada gaarin laakiin inta maqanayna waxay ku maqantay ogaan la'aan iyo kala fogaan iyo dadkii kala dheer laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa maalin ba halka la jooga guuleyn halkan maanta taagna ay guul tahay waayahay gudoomiye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa jiro wax walba qorshe ay leeyihiin qorshaha aad ka damacsantiin ururkan iyo sida uu rabtiin inay wax u socdaan walaal aad baad mahadsan tahay Mahad Shaakir qorshaha ugu weyn aanu ka damacsanahay ururkan waxa weeye kor u qaadista iyo kobcinta aqoonta saxaafadda guud ahaan Soomaaliya oo dhan markaad eegto waynu la kacaanay inagu burburkan la kacaanay dadkeenu way la kacaameen saxaafaddu qayb bay ka ahayd waxa loo baahan yahay in
dhismaha dowladnimada iyo hadba dadku aqoontooda halkay joogtaa ay isla socoto saxaafaduna uma baahna keliya inay mikrofon qaadato ay wax tabiso waa inay iyada dib wax loogu celiya oo ay dib wax ugu noqdaan ujeedka ugu weyn aanu leenahayna waxa weeye in saxaafadda aqoonteeda kor loo qaado tababara la siiyo xirfadooda ay magaranaysaa xirfad la garanayo noqoto inaanu qofkii isu noqonin isagu wariye editor ama barnaamij soo saare habeeye duube waxaba inaanu isu noqonin wariyuhuna wariye noqdo kameramaankuna kameramaan noqdo farsamo yaqaan noqdo soo saaraha idaacaddu soo saare idaacadeed noqdo mid walbana uu helo tababar ku filan marka horena aanu ka bilowno saxaafadda halkan joogta halkan fursado badan baa yaala ururo badan baa imika xataa intii aan hawshan bilownay aanu la xidhiidhnay maalinta howlaha aan dhammaystirnana noo ballan qaaday inay waxyaabo badan qaban doonaan waayahay maxaa idii qabsoomay waxa la isweydiin kara waxay tahay waxood markay bilowdaan waxaa jira waxyaabo aan qabsoomin iyo waxyaabo qabsooma marka ma jiraan wax qabsoomay iyo wax fashilmay horta waktiga aad adigaa sheegay bishii lixaad bay ahayd markii ugu horeysay maadaama adiga laftaada aad wariyaasha iyo xubnaha ugu muhiimsan ururka aad qayb ka tahay bishii lixaad bay ahayd markii kulankii ugu horeeyay aan yeelanay maantana bishii 10aad baa la gelaya weli bishii lixaad bartamaheedii bay ahayd maantana bishii 10aad baa 4 ama 3 baa aan dhahdo waa muddo kooban muddada kooban 2 kulan oo waaweyn ayaa qabsoomay kulan waxaa kulankii magaca ururka iyo baaqa lagu diray ee bulshada lagu ogeysiin halka urur laga samaynayo aad iyo aad kulankii labaad waxaanu ku helnaa 34 saxafi maalinta hore 6 saxafi baa ayaa fikradda ma garanaysaa soo jeediyay kulankii labaad waxaa la helay 34 saxafi oo Jarmalka degan oo Soomaali ah oo deegaanada Soomaalida ka soo kala jeedo oo ku midaysan fikirkan oo nala qaatay waxqabadkii labaad kaas waa waxqabadkii saddexaad waxaan odhan karaa wuxuu ahaa inay shirweynihii hoggaanka lagu doorto anigu aan ahaa gudoomiyihii la doortay iyo hoggaankii kale in halkaa ma garanaysaa lagu doortay taasina waxay ahayd guul kale inaanu qodobadii dastuurka ururkaasi wax walba wax umada kale hageeyay anigu hadii aan lay sameeynin qodob iyo qabta oo ma garanaysaa xayndaab lay sameeynin de waan iska dhex dabaalanaya marka waxa iyaduna guul ahayd in qodobadii anigana qabanay adigana ku qabanay saxafiyiinta kan la qabanayay inaan halka ku soo bandhignay oo gacanta loo taagay waxa maanta aanu gacanta ku haynaa oo kooxaha ama qaybaha kala duwan la taliyaasha ee la magacaabay ay gacanta ku hayaan sidii loo dhameystir la sharciyada loona horgeyn lahaa muxuu ahaayay dawladda Jarmalka oo looga sameeysan lahaa lambarka ururka iyo muxuu ahaayay shaqada ururku qabanay loo cadeyn lahaa waayahay gabagabadii wareysiga soo gaarnay waxa jira wax la yiraahdo aragti ama higsi ururkiina muxuu higsanaya muxuu yahay higsigiina iyo meelaha fofog aad fiirinaysaa ururkaygu wuxuu higsanayaa imika markaan ka hadlayno ururada caalamiga wax la dhahaa RSF baa ka hadashay arimaha RSF baa wariye la xiray muxuu ay cambaaraysay in RSF baa u doodaysa xuquuqda wariyaha si fiican oo markan macneeyo ururka saxaafadda adduunka aan xuduud lahayn aad iyo Reporters Without Borders ururka markaan Soomaaliya ku sheego ururka saxaafadda adduunka aan muxuu ahaayay adduunka waxaan rabnaa waxaan aragnay gaab jira oo in hadday noqoto ururkii Nosage hadday noqoto ururkii Soldier hadday noqoto ururadii kale ee saxaafadda ee gudaha ka jiray inay gabeen shaqadii lahaayeen inaanu ugu horeyn challenge ku sameeyno aanu sheegno caqabadaha saxaafadda haysta halka ka haystaan oo ay ururadii la sameeyay functional inaan ahayn oo dad ururo shaqeynayo oo xuquuqdii saxaafadda soo dhicin kara inaan ahayn inaan tooshka ku qabano inaanu xaqqa saxafiyiinta iyo saxaafadda iyo warbaahinta Soomaaliyeed aan u istaagno oo ay noqdaan kuwa xaqooda iyo xuquuqdooda hela waa ka fishinkeeguna waayahay gudoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay ugu dambeyn su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay dalkan Jarmalka waa dal weyn wuxuuna ku yeelaa bartamaha qaaradda Yurub Soomaali badan baana ku nool xiriirka aad la yeelanaysaan Soomaalida nooc noqon doona Soomaalidu og tahay Soomaalidu walaal waxa weeye waa dad ma garanaysa deegaano kala duwan ka soo jeeda ururka policy-giisu waxa weeye inuu Soomaalida si siman ula dhaqmo oo inuu soo dhaweeyo inuu kaliya isagu isticmaalo platformka Soomaalinimada maadaama wariyaal badan oo kala duwan oo Soomaaliyeed oo
qaar caasimadda ka yimaadeen qaar gobolada ka yimaadeen qaar magaalooyinka ka yimaadeen qaar maamul goboleedyada ka yimaadeen uu kulmiyey in Soomaalida ula dhaqmo Soomaalinimo aad iyo aad marka waxaad doonaysaan inaad Soomaalida dhex gashaan oo horumar iyo wax badan aad sameysaan ganacsiga waxbarashada inaan ku koobnaan xuquuqda saxaafadda oo kaliya aanu ku koobnaa xataa ka qayb qaadano horumarinta bulshada waayo saxaafigu wuxuu taagan yahay inuu bulshadiisa hanuuniyo aad iyo aad inuu hawlgeliyo inuu ka shaqeeyo horumarka bulshadiisa waxa weeye caqabado badan baa halkan ka jira Soomaalida gudaheeda way dadaalayaan Soomaalida Jarmalku marka la eego dhalinyar bay u badan yihiin laakiin waxa jira caqabado ah in dhalinyarada qaar mararka qaar noloshii ay ma garanaysaa la qabsan waayaan ay ku adkaato inaanu kuwa ma garanaysaa fursad u raadino in kuwa nolosha maartay salaanka ka siibtaan dib ugu soo celin in wacyigelin badan sameeyno insha Allah taala aad iyo aad ay maasatahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Zakariya Sheekh Maxamed Jeelani oo aan kula kulmay xarunta ururkaasi magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka Zakariya aad baan hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka وقار كميدا فايدوين كأديق إنترنت كهرمود ADSL Plus قريقا حفيزكا أما حرونت الشركة دادا استعمال ADSL Plus وكحرنو دوني دا